بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، رمضان كريم بالله كله توبنكي دنبالة قلي توبنكي ما شاء الله حويا وهبيندي وحصاص على ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من أهل الفجار. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يرشر قريب برنامجك waxaan ka hadlayaa deegaanka xawaalad maalood yaa iskale xaguu ku yaala yaale muj anigu markaan bilaal ka hadlayaan oo ku hadlaya waxa weeyaan wax gabooyo la yiraahdo imika ma jiro lagu kala tagaan oo ku hadlaya nin reer Sheekh Muuse Dhariye ah qolada beesha tumaalood aflagaadadii maanta loo geystay cidii u geysatay waxba naga ma gelin waan wada daawanay waa gaf weeyaan haddaan nahay dhalinyarada reer Sheekh Muuse haddaan nahay odayaasha reer Sheekh Muuse waxaanu ka bixinaynaa waxa weeyaan gafka beesha lagu gafay raali gidin baanu ka bixinaynaa haddaan nahay waxa weeyaan dhamaantayo anagoo miirkeyga iyo maankeyga waxa weeyaan taagay hadaba deegaanka waxa marka Hargeysa laga baxo berbera loo socdo inta u dhaxayso ku yaala waxana la yiraahdaa xawaalad tumaalood dadkana waxa yiraahdaa tumaalo ma garatay cid degan odayaashu ay ka dhawaajeen Ciise Muuse waa dad waxa weeye ilaa buurta kala jeexan ilaa dhinacan ilaa waxa weeyaan berbera ilaa burco meel kasta degan iyaga laftigu karaamiyo sharaf ay naga mudayin oo markaan anigu ahay nin reer Sheekh Muuse ninka Ciise Muuse iyo ninka tumaalba de karaamiga mudayin oo imaga hadda Ciise Muuse iyo tumaaladu islaayaan waxa wanaagsan inaynu markasta inagu dhex ka noqono hadaynu reer Sheekh Muuse noqoto tusaale ahaanba mayba imanba haddana qoladan tumaalood waxay dhaheen meeshan waxa la dhahaa xawaalad tumaalood magacoogi baa Ilaahay ka dhigay meesheedii baa rudageeda xaarxaaranayna taaba rasaasa lagaga saaraa abba Ciise Muuse ku duulaanay waxa reer Sheekh Muuse meesha geliyay ayaaba faduula iyo intii la socotay marka anigu waxaan raali geli ka bixinayaa odaygii reer Sheekh Muuse ahaa maanta soo khaldamay ee sheegtay waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammad inuu yahay suldaanka gabooy waxa la naadeer suldaan Muuse Dhariye tahay gariga gardarab aniga ku garab taagan dadka haynu ka deeyno aflagaadada haynu ka deeyno maanta waa la kala tagay wax gabooyo la yiraahdaa ma jiro nin walba meel buu waxa weeyaan wixiisu noqonay adeerka u baahan inagu haddaynu Muuse nahay dad habaryoodisa oo qiimo leh oo sharaf leh ayaa dhulna siiyay markay reer Sheekh Muuse shalay toole lahaa dhul baa la siiyay reer burco dhani ka hadlayeen dhulka reer Sheekh Muuse ay lahaayeen cid tumaala ah oo ay life ku soo fadhiisatay amba social media ku soo fadhiiso ku jiro waxa weeyaan Muuse Dhariye bartaa ma digi karto ma jirto marka Ciise Muuse amba gobbay qaadan oo waxa weeyaan meeshan xawaalad tumaalood baa la yiraahdaa waxa weeyaan intaasoo dhan bay dagaalada tumaalada ugu deyn meeshooda Ilaahay waa magaca ugu bixiye dadku meel bay ka wada ibaadeen marka iyaga Ciise Muuse taas u taala wax reer Sheekh Muuse amba cid kale u yaala ma jirto marka waxaan leeyahay beesha tumaalood raali gelin odayaal kale la socday oo ciida kale waxba iga ma gilaa dhiga laakiin odaygii reer Sheekh Muuse Dhariye idigu khaldamay waa idiga raali gelinayna وانا شخص وانا تكرر هانسا intaasna waxa weeyaan waxa qiimo iyo sharaf dad walaalo oo taleno nahay dad waxa weeyaan abti eed isku nahay waxa weeyaan inaan wax idin la raadino mooyaan anagu hadda reer Sheekh Muuse inaan wax idin la raadino mooyaan laga ma yaabo waxa weeyaan beesha tumaalood qiimaha badan sharafta badan inaan waxa weeyaan inaan caqabad nagu noqon marka hadaynu noqoto shalay toole marka laga sheekeynay gabooyo iyo waxa deegaan la'aanta umada ku riday waxa horumar la'aanta umada ku riday waxa umada hoos u dhigay waxa weeye waa wada gabooyo sitahaas
iyaanoo suldaanoo gabooya iyaanoo sidan meeshii keliyaateen isku imanna GYL hayd ba diideen oo wax ka socon weyday markaa waxa imika aanu doonaynaa qofkii yidhaa gabooye iyo waxaa la yimaada waxaas waa beena nin walba reerkiisa wax gabooye la yidhaaha waa dhammaaday wax balaayo la yidhaaha waa dhammaaday qaar baa si serious ka hadla laakiin sida xaqiiqdu sida u jirto waanu ka dhabaynaynaa marka waxaan u sheegayaa beesha tumaalood ee qiimaha leh ee sharafta leh ka raali noqda wixii odayga noo adeeradiiyo soo gaadhay taa intaas ka baxaya xabaalo tumaaloodna ina yaroo reer berberaan iyo ina yaroo reer hargeysa markuu hargeysa u soo socdana uu maraayo meel dee waxa weyn anu la degay ma moodi jirinba marka gaarigu marina anako yar xitaa xidhi jiraa dhinaca taa xabaalo tumaalood qaar ba xitaa dhijira tumaalaha ku aasan marka Ciise Muuse adeerde hargeysa oo dhamay degayiin berbere iyaga leh sheekh iyaga leh meel kasta iyaga meel mariina way geeyaan inay waxa weeyaan beesha tumaalood waliba la dhisaan ila dhulna ma raacaye wasaasanu hadlayna haddaan reer Sheekh Muuse nahay saasanu hadlayna ma garatay sidaas ayaanu hadlayna marka waxaan u sheegayaa oo leeyahay arinkaas bartaas uu ku eegyahay teeyanada adeem nahayna waxa umadan sheeganaysa marna gabooyo marna wax kale marna meel u cararaysa waxa bartaa dhigay waxa weeye waa tawfiiq la'aan waxa bartaa dhigay waxa weeye bal imika reerka tumaalooda iyo meesheedii baanu dhisanaynaa anu waxa looga aniga tumaal raal hada waxba wagaratay eeg tawfiiq la'aan bartaayna dhigtay marka maanta serious baa la isku hadlayaa ninkii dhigi jiray gabooyo adeer reerkaaga wax u qabo anu rubaa ku sheegayaa beesha tumaaloodna sharaf iyo karwayna cumaamada caaw way diga raali gelinay waayo way loo garaaba waa gaf cad waxa la idin leeyay gafkana waxa weeyaan cidii waxa weeyaan la socotayna waxaan ka rabnaa anagu reer Sheekh Muuse waan soo raali gelinay waxa weeyaan beesha tumaalada sharafta badan cidii kale la socotay meesha ka hadlaysayna iyagana raali gelin baa laga rabaa ma garatay beesha tumaaloodna waxa leenahay hore u socda dhaqma ma jirto meel la dheeyay waa meeshii Muuse dhariyo laakiin waxa la dhigi karaa waa xabaalo tumaalood wixii lagu bixiyay Ilaahay baa naga og ku dambaabi meeno ma garatay reer degana Ilaahay baa naga og cid lagu caalamada saarina Ilaahay baa naga og oo been shay karmeeno laakiin waxay ka hadlayeen meesha Ciise Muuse degan Ciise Muuse khayr Allah si meel walba digay la qurbay digay dad qiimo iyo sharaf leh iyaga bartaan tumaaladuna meel walba way digay ila qurbay digeen waa dad qiimo iyo sharaf leh marka gabigeenu waa hadaynu dad Soomaaliyeed ay tusbaxna de meel loo kala qaadaa ma jiro saas uma loogu wardiyaa marka la soo wareejiyo ilaa barta kala hadana barta kale uu geeyay marka adigu hadaan ahayn reer Sheekh Muuse waxa weeyaan raali gelin buuxda oo sharaf leh ayaanu siineynaa anoo ku hadlayo magaca odayaasha reer Sheekh Muuse ka dhalinyarada reer Sheekh Muuse ka haweenka ka uqaasha ka siyaasiyiinta beesha tumaalood ee qiimaha badan ee sharafta badan ee walaadaya ee ehelkayaga ee waxa weeyaan tooshka lagu iifinayo ee waxa weeyaan waanu ka raali gelinaa iyagana waxaanu ka rajaynaynaa inay raalida qaataan maadaama boqorkii una hadal maadaama suldaankii guud ee reer Sheekh Muuse hadal maadaama ay waxa weey siyaasiyiintii reer Sheekh Muuse ka hadal waxa weeyaan qofka bilaadku uu khaldami karaa odayga ay adeerkay waxaan sheegayaa burca ka soo hadlay towdar ka soo hadlay adeero waxa weeyaan adeerkay baa tahay aabahay baa tahay reerkaasi waxay maanta dhaheen xabaalo tumaalood annakaale rag tumaalaha ku aasan bay dhaheen waxa weeyaan noo hiili inamay oran nala dagaalamay inalmay oran ma sharafad bay qaateen meeshii bay xaadxaadanayeen gobonimadii sharaftu waxay ku jirtaa in afkeena iyo aadinkeenuba ka nabad helo saasaynu hadeen waxa weey dadkii gabooye sheegan jiray iyo balaayo sheegan jiray saasoo kala meelayna waxa la rabaa qoladii naarta galaysa iyada u taala qoladii jannada galaysa iyada u taala cid inaynu wada dhalanay oo waxbaynu iska dhalnay waynu isgurguursanay Soomaalidaasi markii qabyaaladii iyo tiri hablaayna siinayno ayaa ka tumaalo siinay ka tumaaloodna ka Muuse siiyay ka Muusena ka madhibaana ka hawlana ka wardheerana ka anaasna ka yaxadhna demoji ya qaar badan oo iyagu gabooye sheegta
calaa ayi xaal waxaasaa inaga dhexeeya laakiin dhalasho isku manihi meel kamaynu wadayman ummaddaas Soomaaliyeed baynu nahay waxaynu isku nahay ma jirto markii hore waxbaynu isku rurinay war bal waxay isfahmaan baynu islaam ilma adeerayaalow dib walba reerkaaga wax u qabo intaasi ceeb ma adduunka waxa uu nacanka idii aamusanay anigu bilaal baa horta idii sheegay shalay tobanana bartaa fadhiya waxaan ka leeyahay afayanahay oo bulshada gabooyo u hadlay kadib waxaan arkay bulshada gabooyo la sheegayaba inay quluubtoodu kala shashito sidii kuwa munaafiqaadka ilaahay quraan ku sheegay taxsaban quluubun shatta quluubtoodu ba waxa weeyaan si kala waxa weeyaan durkisan waa faatiman malanaya marka walaalayaal bir Ramadaan baa lagu jiraa in la iska raasada ma fiicna in la istaba guraa ma fiicna bilaadanku inay qiimeeyaan ba wanaagsan waxa weeyaan maanta hadday cid ku xoqonaysi wala riican dhala meel ay ku xoqoto ma weeyday hadday cid ku xandhadaysi maanta nin walba ninkiisii weeyaan ninka Muuse Dariyo waa ka waa Bilaal dhinacaas soo fadhiya waa nin reer Soomaaliland ma garatay dhinacaas anigu waxa weeyaan xiniyayga la fadhiya cid aan kaga habaashariyo cid aan doon fadhiisanaya ma jiro ninka Tumaalna waa sidaas maadaama ma jarafada ay qaateen ilaa meeshaas aan degina iyagaaba gabooyaha kala marka la eego kuwa taariikh laba Tumaala jira iyagaaba tuulad la leeyahay waa tuuladii xawaalo Tumaalo ya Ciise Muuse markaa inay u dhisaan baba la rabaaba marka Ciise Muuse hal la degan iyo dadka meesha degan ee xaadxaadanaya inaanu qadar reer Sheekh Muuse nahay inaan dhex galno ma Tumaaladana waa la degnaa Ciise Muusehana waa la degnaa labadaba dabeecadooda waa naqaan Tumaaladana waa dad fiican Ciise Muusuna waa dad waxa weeyaan hiil iyo hooba leh oo waxa weeyaan fariidiina dadkii la dhaqmay baa garanay qiimo iyo sharaf iyo qadarin baa anagu hadaan nahay beesha reer Sheekh Muuse markaan xataa wada deganayna labada Muuse halas markaan magaalada Hargeysa isku dilayno koobab kale labadii Muuse ayay la ma garato waa Ciise Muuse iyo waxa weeyaan Muuse Dariya okay marka kuwa xawaalo Tumaalo degan anigu garan maayo Bilaalaan ma garanayo anigu Tumaalka Hargeysa degan ninka Ciise Muuse Hargeysa degan iyo bayka berbere degan ma garanayo ma tigin xawaalo Tumaalo inaan taraa ku dhaafo mooyaan wali ma tigin meel aan tiginna inaan xukumo oo wax ka sheego oo aan qaato oo aan dhaw waxa weeyaan qola aan xukumo ilaahay maalinta qiyaamaha uu weydiinaya dhulkana ilaahay baa leh dhulkana ummadda ilaahay ku beero oo Soomaaliya iskale ilaahay bayna wada dejiyay hadduu caawa dego waan wada degaynaa mid daar dheer ku leh iyo mid daar gaaban ku laba hadduu caawa dhismo waan wada dhismaynaa mid daar gaaban ku leh iyo mid buul ku laba muhiimadu waxa weeyaan marka beesha Tumaalood ee sharafta badan xawaalad Tumaalood ciidan ma digi jirinba iyo magaalada way isbedeshay weebka waa tariiq waa la xaalanaya Tumaalada waxa leeyahay magiciinu ha jiro hore u socda mid kalena way igu boorinaya waxa leeyahay inaan taabar waa qalan jeexan ee Tumaalood ilma adeereela soo deeysta oo soo daaya taasna waa iga talo dhaliiliga maaha waxa weeyaan in cawra xidhan beesha Tumaalood waxaan ku ogaa karti iyo ragniman ku ogaa gubaniman ku ogaa niman biraha saaw liqaan ku ogaa niman aan gaban baan ogaa niman xadiidka xadiidka dhanba nimanka laaban ku ogaayay waxa weeyaan intaana meesha laga soo saaro odayga reer Sheekh Muuse arinka ay diga yimidna waa idiga raali gelina hadaan nahay dhalinyarada reer Sheekh Muuse cidii kale la socotay cidii doonta ha noqotay aan reer Sheekh Muuse ahayn annaka waxba naga ma gelin wax gabooyo la yiraahdo saacada laga bilaabo ma jiro hada shalayto odayaasha qaar baa tahay shalay waxay lagu laayay dad gabooyo sheegato ay xirana maanta iyaga gabooyo loo sheegay adeer waanu diidnay annaga naga dhigina duul culum waashay naga dhigina marna dhinaca noo jeedinina marna barta noo jeedinina annaga noo jiheeyo meel shalay toolaad idinka waxa way wax gabooyo leeyahay jirada maanta ma jiriso rubaydii sheegay dhalinyarada qiimaha badan mid naga dhaxan jirta hadaan meel isku wada imanno meel ka shaqeynana meel waxaan isku imanna loo wada dhan yahay oo ka Tumaal joogo oo ka Madhibaan joogo oo ka Anas joogo oo ka wax weyn hawla joogo ka Wardheer joogo meel sidaas oo aan ka shaqeyn karnaa hadaan meel laga shaqeynayo haday academy noqoto haday urur noqoto meel loo wada dhan yahay oo intaas u dhintay baadee oo marka dunida baanu diidina oo waxbaanu iska qaadayna oo waxbaanu diidina oo waxbaanu iska tufayna meel weyn laakiin meel Muuse Madhibaan soo fadhiistay ka dhaqnaqleeyaan oo dambe ma jirayso meeshan inta ugu badan ay ka hadasho waa Cadnaan iyo Bilaal Cadnaan waa nin Madhibaan aniguna nin Muuse Dariya mid kale ka hadasho jiwaan mid kale ka hadasho cid kale ka hadasho qaydada ma aragtaa waa maya
هذا لين من جوال بلا سوء عثمانيسيني أو مركا دبلوماسية ولا أنت كلام مقن هلنا أنا كمركا أنا قاعد دقيقة أنا وضد وأدان شوية ولا خلدانين ما توه الصحن قفك بلا آذن قفك كنا هدو قرن ويا واحد صوص ولا واحد تاجر ما أنت ما قرته ما قرأت واحد تاجر هدو قرن ويا واحد صوص ولا ما قرته ما قرأتي مركا أنت سوما ليه قليا كلايا أذي مشجريا سؤال ذي أذي مشجريا سدنيدي توديك مشجري وبشر سوما الله هدو وحكي شيء ويا هدو وحوين عاود قيليو ودد كيس هدو ما ترى عيسى موسى على ودد كيس نعم هذا كان وحنا كقالنا لين عفايدة مركا سيدي إذا يدير رعاق يدينا يرجعنا وخلدني هاي وسدن وماها إنه رهم ماها مركا تينا يرد الله عن كايد الرعاق لكن حقيقة واحد صحيح ولا خلدمي إلى هي ملايكتي سنة خلدمي ما قرأت خلد كان إن لقى صوت كبته أو خلد كوحة ويا لقيرته هدو أنا قاعد وقرن وايد اللي يرهان أنا كبرت نص فريسانو رالي كلام بوحدة باشا صارني تمالود مالك استيجوت إن قرن سينا نقرني وكو قرع يسافر ولا وديك وين برت نص فريس وبلاد وين كيني رالي هذا شيطان كيسكن نارا مالك راح تاني اللي رادينية أنا إلى حاري قربا حتى هذا مالي مكان رسالة سان تلياري يتشرب الكوا لبض باني إلى حاري ويدي إيمانية البادرة ذيباتين ما قرأتي ثم على ضوء تدفع عن ويان تدقي مبدن ويان تدعامس بدن ويان تدقى مركز تحت الله بقوة مسدرية قرض اللي يوم دبان تدقى وحويان ثم على ضوء أفكابا تدقي مبدن تشرف بدن قبل بنتي سالة شيئا وحويان مبر بدن بيش شيء كرمينه ظلمني نمينه أذير كيانا ظلمي كيال مينه أذيرو إلهي سبحانه وتعالى كعبسه بالربضان بالو جرا أنا وإنا كاغو كلان هاي وحويان dadka ka leexo dadka faraha ka qaad magaceena inuu kor u qaadno inankii baa deegaanayna siyaada inuu reer Sheekh Muuse nahay inankii baa u baahan deegaankeena dhisano oo waxa weeye sandaqada ka dhisano oo buulal ka dhisano oo daara ka dhisano wixii aynu heli karno inaynu ka taagano marka cid wax u qabta waa xageega cid aan cid kale wax u qabina iyada waa xalkeega laakiin wallahi waxaynu u baahnaa inaynu dadka iska deyno haddaynu magacaan gaboye lagu sheego waa dulmiba isagaaba dulmiyaba because wuxuu dulmi ku yahay maanta markuu yiri tumaal waan dhaqaaqayaa deegaan baan sameeyay ina cagaha qabana ma waa dulmi maanta ma dhibaan haduu dhaqaaqo waxbaan qabsanay inaan cagaha qabsana ma war dheera carray inaan cagaha qabsana ma hawlaha inaan qabsano musdariyaha inaan qabsano inaan iskala fudeedina adeerda isku odeymanin waxaan gabooyaan waa magac waxa weeyaan deegaan waayay marka hore siyaasadiinu waxay ahayd inaad la baxdaan gabooye kadibna waa la fahmay fajidiin iyo niman Soomaaliyeed oo cadaaba ay kala kicisay deegaan dad hal lahaydeen wax badan baad kala weydiis suurtiga weyday wannan baa lagu Ethiopia magaca lagu sameeyay waliba ninkii sameeyay markaas la dilay isla rag gabooyaa dilay ma garata waynu haynaa taariikhda maxay dagaalkaasi ku yimid wuxuu ku yimid nin Puntland ka soo jeeda iyo nin Muqdisho ka soo jeeda iyo nin Soomaaliland ka soo jeeda isku noqoteen oo ka Puntland ka soo jeeda wuxuu doonayaa inuu Puntland dego ka Soomaaliland wuxuu doonayaa Soomaaliland dego ka Muqdisho ka soo jeeda Muqdisho bulshadu saas weeyaan ka waxa weey maamulgoboleedka Itoobiya degan sida nacam inaga laftigeenu nin walba meel buu la degay ummadda Soomaaliyeed qabiilka ee Soomaaliyeed cid kastaba ah nin walba cid baa la degta waliba nin Soomaaliyeed amba gabadh Soomaaliyeed oo dhahaysa cid gabooye ah qorada sheegata aan la deganeyn ma jirto way jiraan waa la isla degaa ma garateen marka billahi alaykum كم وحيسو قرية كي ام ابن يوسف يرى يا كاف وروحان يا بالاخلاق ور بالله رمضان با لو جيراي adigu cida tahay waxu qabo aniga hay u dhiyaa kaaf taxure adigu shalay toole markaan bartan soo fadhiyeen adiga ku haleeyahay waxa weey Allah gabooyaa dumay ka dul qaada maada iga futo xumaa misaana ka futo xumaa adiga iga futo xumaa laan gaabaha kana ugu qoran tahay waxa weeyaan KML ibn Yusuf Yare adaan ku sheegay cida doonta ka noqo adigu dadkaaga wax u noqo nin musidariyaa
nin musidariya waxba kaagama baahan rubba ku sheegay aro hadan musidariyane adiga iyo inta kale gabooyo anigu adiga waxba kaagama baahan aanu nin sidaa u hadlayaan ma garatay waxa weeye salaadii bay gaadhay waxa weeye waa kacaya oo salaada galaya ma garatay marka in adeer aanu nin kalsoonidiisa meesha la fadhiyaan adiga iyo qeyrka iyo ciidda waxa weeye meel kala joogtaba abadan inaan wax uga baado rubba ku sheegay laakiin in lagu soo dhuunto ma waxa weeye gabooye iyo maxay iyo waxa sidan iyo balaayadin iyo shalay toona waxa la haydeen bilaalka iyo cadnaankaasi waxay meelaha la meereysaneen waa gabooye waa sidan sharafti bay naga qaadeen waxay bay naga qaadeen caynkan bay naga qaadeen sidan bay naga qaadeen maantana anaadi leedahay waxa weeye kaaf doxon ariga ma bariis baadisa ma soo biilaysan sa talyaaniga adigu waxay ugu soo dhigtaan meesh ugu adkeey Yurub aanu ku noolaynay ku raaxaystaan talyaaniga ku noolaynay ma garatay nin aanu gacmaha moos dhigto ma garatay arigu waan isaaqaana nin kasto reer Muuse ana waan aqaana rubba ku sheegay ma garatay marka wixii Muuse ku imaade ay gaf sameeyaan inaan ka hadlaan waajib baan leeyahay shalayba dad aan dan iyo muraad iga lahayn inaan u hadliyo in kale ayaan u hadlayniyo marka meel aan ka imid Ilaahay iga dhalay iga dhigay oo dhiigayga dheecaankooga yahay waa inaan la qaataa dhibkooga iyo dheeftooda waa inaan waxa weeyaan kartidooda iyo sharaftooda la qaataa marka in adeer waxaynu isku haynaaba iska yarba ma garatay ima taqaanid inaan ku aqoon baa laga yaabaa meelahaas aad igu aragtay aqoon kale ma lihid marka maxaad ii caroonaysaa ninkaas aan ma garatay ninka tumaaloodna waa nin walaalkaya nimanka kale gabooyana waa niman walaaladaya takii aan afkartan waan ka raacaa anaga cadnaan bad ka saaxiibay intaas saneen qurbaa joogaba iyo inta ku sii horeysay hal habeen waxba isugu mayman niman kale tumaalood niman kale nooc walba oo qoryaha ku jirana sidaas sideedii ma waxaan u jawaabayaa ma taqaana Cabdiraxmaan aad baa maasatay hadal yar wuxuu soo qoray liidasho ah nin doonaya waa dadkan ka sheekeynay oo dadkan nimanka la yaan tumaalada lagu dhigin yaan tumaalada dadkan ka sheekeynay isagii ma jecleen wax ka noqdo reerkoogina in wax uu qabto ma jecla adigina wax ku qof waxa ay tiisa daryeelad kala ku dara tiisa daryeela ee kala ku dara nin naftiisa daryeeli waay dadkiisana wax uu qaban waay mid kale u daryeelaya no marka adigu qabiilka ka dhalatay wax uu qaban weeyo aniga aan kula qabiilahan maxaad ii qabanaysaa taasaynu wada hadlaynaa imiga waxaynu ku wada hadlaynaa qariidadu waa kuwa is-jafay saasaynu wada hadlaynaa ninka reerkiisa wuxuu qaban waay aniga oo nin reer Sheekh Muuse muxuu ii qabanay maxaad ii qaban kartaa maxay siin kartaa waxaad siin kartaa ii qaban kartaa ma jirto rubban ku sheegay in markaa khurfay isku sheekayno oo wixii de walaaltinimada dhex yaalo ubad iyo xaasas iyo taastii Soomaalida ka siman Soomaalidu way wada qabtaa oo Soomaalidu waxba ehliyo ilmiyo ubad iyo abti eediyo haburaag bi isku wada yihiin taasaynu ka simanay laakiin ida dabarkayga toogan lahayd oo aniga gadaal iga xaman lahayd anigu gadaalka ama xamanaya bartamaan kula soo fadhiyay dadkaaga wax u qabo dadkaaga wax u noqo shalay tolaa dad baan iska amaan laanay dadka ayaa naga qabta war maanta wax qabso maanta aan waxaan ka balan qaadaya qolo kasto gabooyo sheeganaysa oo wax qabsanaysa markaan arkay inay horumar ku talaabsanayso qolooyinka kale gabooyo sheegan jiray oo daba socda markaan arko wallahi waan jarjaraya waan ka soo hadlayaa runtaan u sheegaya waayo hays daata inaan julmad wada noqono wax wada qabsana diidnay okay qofkii wax qabsanaya lagu dhigin qofkii horumar sameeysanaya lagu dhigin qofkii deegaan sameeysanaya lagu dhigin qofkii karti gaaraya lagu dhigin qofkii gubernimo rabaya lagu dhigin qofkii guul rabaya lagu dhigin bilaa alaykum marun baan isku sheegnaa mise been baan isku sheegnaa waxa weeyaan beesha tumaalood ha laga leexdo ilaahay ha laga noqdo bishii waxa weeye rabada waa dhamaad caawa 22 waxa weeyaan way socotaa 9 cisho ay noo haray haday 9 ku dhamaatay 8 cisho ay noo haray ciidi haynu iscafino beesha tumaaloodna waxa la eesaasay idii salaamaya ana iscafino cidii aniga deynigu le bilaal balida Palermo jooga ninka aniga deynigu le hadii wax ka dhacay anigu waxa weeyaan si gawaya la hadlay dadka dibadooda ka hadla Palermo jooga Facebook iyo waxay u qoran Bilaal Mustafa Daahir hadii baantaan ma xuquuq ma naqaqlay ma garatay wadii ma kartaa meesha joogto rubban ku sheegay ma garatay marka dadka dibadooda wax ka dhaamay xaraan ma garatay dadkan wuxuu sheegay khaldamay maanta leefka soo duubay waxa weyn waxa keenay waa oday reer Sheekh Muuse inaan caayayga ma geeyo waa odayga inuu cid caayana isaguna ma geeyo waxa weeyaan dadku caayana waa dadkaygi
ma garat inaad adiguna si khaldan wax u fasilata maaha wad cilmiga aqoon inaad adeegsataa laga rabo taa hadana meeshii garay talabaad hadaad ninba wuxuu yiri hadaad dadka jaahiliintu waxa weeyaan farku ku taagan adiguna shan farood ku taagto maxaa ka faa'iideysa waba jaahil badi waba jaahil dadka qaar ba waxa isku haystaa de jaamacada ka soo baxay aqoon leey war aqoontu waxa weeyaan wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala bixiyo war maskaxdu waa mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala bixiyo war kartidu waa mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala bixiyo qofna waxaan dhalad weeyaan waxaan qofna waxaan u dhalin qofna waxaan u dhalan iska ma dhigo Soomaalida waxa taaba kala waxa weeyaan dhaqan masuulo qof walba wuxuu dhaqan u leeyahay kama baabado hadaad kala timaado xaafadiina reeriina dhaqan xun kaas un bad waxan balla dheeraan balla gaawo dhaqan ka xun ba wadata dhaqan ka xun un bad wadata marka bilaa alaykum waxa weeyaan Soomaalida hal daayo hal cafiyo waxaanu sheegay odayaasha reer Sheekh Muuse salaadiinta reer Sheekh Muuse inaad waxa weeyaan raali gelin buuxdo waliba inaan taydan lagu harin in arinka waxa weeyaan si qiimo badan waliba qurba joogta inuu soo raali gelino qolada waxa weeyaan raba inay deegaankooda hagaajistaan inay waxa weeyaan inakoo waxa weeyaan magaceena dad wata waxa weeyaan ay ku aflagaateeyaan inaynu iska qabano inuu runta sheegno oo waxa weeyaan dadka caafina weeyaan shalay toole markanu Facebook wareejinay YouTube wareejinay habariyoonis bayna siisay dhul oo waxa weeyaan uu ka hadlaynay cidina haysatay ma jirin tumaalo iday soo carreen reer tumaalood iday soo carreen life inaga may soo galin warbaahinu ma yeeran gafka hal iska daayo dulmigana hal iska daayo dadkana gardarada cad hal laga daayo intaas reer Sheekh Muuse cidii kale wehelinaysay waa la garanayaa cidii kale wehelinaysay reer Sheekh Muuse maanta ee odayga ay adeer la socotay iyagana raali gelin baa laga bixiyaa ayaa laga rabaa intaas iyagana raali gelin baa laga rabaa markaas inahaasun buu waxa weeyaan barnaamijkaygu daarana cid aan anigu danka leeyahay ma jiro dadka live-ka isku qurqurxiyay dadka iska dhaadhiciyay yaa ku daawanayay hayayo miyihiba waayo adeer aniga laabteedu waxa weeyaan waa ballaaran tahay way weyn tahay laabteedu ma garatay kalsoonideedana meel kasta ku joogaa meeshan ku jooga ma taqaan waa Italia walaa run baan ku sheegay ma garatay meesha laga soo wadayaa ma garatay ayaan ku dhex fadhiyaa waxa weeyaan al shidana bashan ka inama yar waxa weeyaan caana yar qaatay iyo qaar badan oo waxa dadka dabadooda ka hadlay waxa ma aqaan ku baydii sheegay ninka laangaabki waa ninka isagu aan isqirsanayn inuu qof jiray yahayba intaas aba laangaabnimo kugu filanba hadaad rabto inaad laandheer hadaad noqoto inaad laandheero noqoto waa inaad adigu is aaminsanataa inaad tahay qof jira yaa ka laandheeraysan marka inta ka laandheeraysa waa tahay aad baa mahadsan tahay maxamed salaad warmidooba idin kale idin dulmiye illa dulmiye ma jiro dadkan waa qabiilada isku tagay qabiil walba wuxuu leeyahay anigu sidan baan anigu sidariyo samay qabkay saaran waad yaabas ninka tumaalood qabka saaran waad yaabas kama dhibaa qabka saaran waad yaabas ka hawlo qabka saaran waad yaabas ka anaas qabka saaran waad yaabas ka waxa weey dad noocaas ah marka inaan kala faataxayno ummaduna aragto Soomaalina kala barato waa waajib badi Soomaalida dadka way la dhaqantaay wada gabooyo buu haysatay maanta kala dadka kala barta ka muusaha barta ka madhibaan barta ka kala barta ka tumaal barta ka ummadda kala barta bilaa alaykum ummadana isku xaarina saad isku soo xaarisan way isnaceen waa saad isku soo wadeen Soomaaliya cadaab Ilaahay baa tiile waxa wadankeenu u diglay waa la Soomaaliya haday dhaay waa belayna ay garatay saad gabooyo wada laangaab ugu dhigiisana soo wadeen وقوة لبدي كوي لبعض كي وعوية كلا بيبي لبدي كوي لبعض كي وقالوا والبدي اللاعي مرجع أنت اسمه نسوا قلي ولا لا يتسمع لنا ما هلا يل بعد ريت أخو قناع إلى يقول داري والحقيقة والله يبات ولا بس أنا ولي بس صون كو ما أنت تروح نروح في ذاك الدعية وحوي لنا عايش شوي الشيء طويل ساق ولا في سبوري يودن بما أنت نقوله ما قرأت مرجع أنت سيدي صون قلي أنا قوار جعلنا من الجعلي قبيل الوقف أدونك أنت لايف سو قلي ما سو هلسان بلال مصطفى الطاهر وقبيل عاين هذا هشام جيد يقول الحرام ولي نلا شيء شخص يسوع عاين عن عيال غيابه نلا شيء في حياتنا
في حياتنا أنت صون ولا قبيل معاي قف إذا أبرر إذا الله يفوز وفريس قبيل كيس معاي ما شاء الله هذا بقول سلام يا أحمد ديريا والله قولي إذا صوفر يسلف قف قبيل كيس معاي وايو waxaan ogahay qabiilka dad badan baa ku jira dad waxa ku jira laga yaabaa qabiilaadka la iska caayo dad hadday ku soo habaaraan toos ad waxa weeyaan meel daran lagu geeliyo dad dumar ah dad birmargeyda ah dad nacam waxa weeyaan maxbaab baa ku jirta asxaab baa xitaa ku jirta laga yaabo marka inaad ku weydo hal shakhsiyo tusaale ahaan ku soo caaya hal shakhsiyo ku soo aflagaadeen inaad qabiil dhan adoo wax badan ku lahaa aad ku weydo inaad soo aflagaadeyso aqliga bilaadanka saliimkan ku siinay qabiil dhan inaad shakhsi ku soo caay aad ku weydo in badan oo asxaab ka ahaydeen kaasaan ku siinay aad baa mahadsantahay maxamed axmed ismadu nicin waa isjeceshin waan isjecelna laakiin xagaanu meel soo fadhiisan lahay annagii baa kala dhacayla marka hadda weyn caadi loo sii kala dhacaa oo anigu imika idaan nimanka kale idaan caloosha ugu qaban lahaa waa inaan bartaa la soo fadhiista anigu waxaan reer sheekh muuse nahay imikaan u sheegay reer sheekh muuse nahay haddaan cid u hadlayna reer sheekh muuse u hadlay intaas eema shalay toole markaan hadlay waxaan naga qabta wallaahi dadka qaar dadba iday dad soo wiceen oo ag fadhiya waxaan yar naga qabta kan yar wuu waashay kan yar waa kan yar maanta markaan daayayna anay qaar badan meelaha ka leeyin ma garatay waa cusuri oo shalay toole markaan ku waayay maxaan ahaa maxaad ilahayd maxaad igu caayisay maxaad igu aflagaadeynaysa maanta markaan reerkayga u noqdayna cusuri baan noqday dee ma adeerna kala adeer baashidee kala daaya adeer anigu qalbigayga waa qalbigayga bilaal waa bilaal ismaan bedelin laakiin markaan kaa arkay wax badan waa inaan kaa leexday waa inaan kuu daayo markaan arkay inaad diiqadoonayso markaan arkay inaad damqanayso markaan arkay inaad waxa weeyaan wax ka sheekaynayso markaan arkay inaad gibigaaga u sii noqonayso markaan arkay inaad waxa weeyaan waxaan markaan waxaan tusaynaa qiimuhu ji waa leey qaayahaanu leena qadarintaanu leena waxa weeyaan adeer waxa weeyaan umada waxa weeyaan hadda adigu isqiimooda cidna qiimo anaga isqiimeena anaga isqadarini alaykum asalaam iimaan adeer aad baa ku salaamaya maxamed cabdi kayse khayr baa ku salaamaya bilaal mustafa daahir baa aniga bilaal gaweyle baa adeer waa nimankaas waa nin adeero mushadariya waa nimankii dhigi jiray waxa weeyaan gabooye ku falantay sidan baa tahay imika way gula kafsanay walaalan ma sha Allah marka in ma adeerayaalow haddaan anagu beesha reer sheekh muuse waan kula ligelnay waxa weeyaan beesha tumaalood meeshiina iska wata qodqota garta aniguna ilaahay bay gari taqaanay marka hargeysa tagay berbere aadayo berbere kayman hargeysa aadayo xabaalad tumaalood wiligiiba maqli jiray ilaa madaxweynaha muuse bixi malaa markuu dhashay maqli jiray dadku xantan waxay ku hayaan tumaala ku aasan waxa weeyaan magacu waa tumaalo ma garatay ciidan maanta la soo qabanayaana waxa weeyaan dad deegan waa dad waxa weeyaan gobolka dhan waxa weeyaan saaxil leh ma garatay iyo gobolo kale qiimii qatalin bay naga mudayn aflagaada anaka nooguma kuwan kalena aflagaada nooguma laakiin markaan anigu bilaalahay hadday wax isku qabtaan inaan dhex galo inaan ka aamuso nin kastoo reer muuse asaasan leh waxaan leeyahay haddaad aragtaan meel la isku haysto reer sheekh muuse oo dhex ka noqdo waayo taasaynu ku badbaadinaa sumcad waxaynu ku helaynaa taas weeyaan haddaad aragto laba qof oo is haysta heshiisii dhinacna ha raacin godob Soomaali waxa bartaa dhigay kala dhigay waxa weeyaan wixii kale qofka hadda xitaa qof aad u ciireyn oo u hiilnayn afkaaga iyo adinkaaga umada ka qabso umada afkaaga iyo adinkaaga umada ka ilaasho nabiguna kaleey salaatu salaam wuxuu yiri wariyaa jannay bal ayam u balan qaada wax damaana qaada maxaa kamid ah wuxuu nabigu leeyahay ii damaana qaada waxa kamid ah waa carabkaaga iyo adinkaaga inaad umada waxa weeyaan islaamka carabkaaga ka ilaashato oo afkaaga ka antaroosho waxa ka soo baxay eesho laba malag ba garbahaaga saaran waxaan waa laga qorayaa qabiilku ma raacayo laakiin haddana saaxadaynu ku jirno iyo casrigan aynu marayna ayaa waxa weeyaan qof walba hadduu arki waayo qabiilkiisa wax qurux badan ma seexanayo mana gamayo war qabiilaadkan horumaray qabiilaadkan kule waxbaanu dhisanay qabiilaadkan kule horumar baanu gaarnay way fikiraan
isku nin walba dantiisa reerkiisu u fikiray marka qolo kasto sheeganaysa waxa ay saddexdan xaraf ee meesha nagu qoran GYL ilma adeerayaalo nin walow reerkaaga xuqabo nin walowba reerkaaga xuqabo taasi ceeb ma wixii kale hadda tira wartaasi fursamaysa bilaalow caynkan hadda mid loo wada dhan yahay oo todobadii haamood u wada dhan yihiin aynu ka wada hadalno wayna hayn yaan udad la isku qaadin yaan naxil la isku qaadin yaan dhabarka la iska joogan qoladii soconaysa dhaqaaqaysa hal la daayo kuwii wasiiro noqonaya hal nabadgeliyo kuwii meel dhisanaya faraha laga qaado kuwii cid ku beeraysa hal iska daayo waxa markaa inakayna dabadhi waxaynu isku nahay ma jirto haddaynu wax isku nahay waynu isku damqayn lahayn haddaynu wax isku nahay waynu is ixtiraami lahayn haddaynu wax isku nahay wax badan bay waxbaan bedel lahaa qarnigan aanu ku jirno 2020 maanu aragnay wax qalbigu diidayo 2020 iyo 2020 maalmiye la soo dhaafay maanu aragnay wax isna inta leego wax weyn dhex yaalayna maynu aragnay marka bilaa calaykum inaynu isku sheekayna khuuro oo ciyaalkii noogu sheekaysan wax gabooye leeyahay jira oo hadhow toona marka gunta loo dhaadhacano balaaye iyo qurun iyo wax ay nacayb iyo naxal iyo balaaye ka soo baxdo waxa ubadka yaa lagu korin anigu ubad baa dhalay maanta ubadkay kuma korinayay wax la yiraahdo gabooyaa jira kuway dhalaan ku korin maayeen wax la yiraahdo gabooyaa jira because wax fashila weeyaan wax fashila wax nin walba ka carray wax ka carrayo social media markaan soo bilaabay waxaan ku soo gali jiray inaan ku hadlay magaca la yiraahdo ano Bilal Midgaan ku soo gali jiray markaan darajada ka qayb qaadan qalin jabiyeen waxaan ku soo gali jiray Bilal gabooyihii iyo wixii markay yarmato haddana waxaan sameynay Bilal GYL baa ku soo gali jiray sheekadii markay bartaa maraysa imikana waxa weeyaan marka magacii soo wadnay soo qurxinay qaar baa waxa magacyo ka liilito xun baan u qaadan jirnay maantana kan weyn ku kala yaacay ku kala tagnay marka cidii qaraabo doonaysa cidii gunno doonaysa ooyo waxa tirada gabooyaan oo gabooysataan dadku ay igu caawiyaan sasa doonaysaan meeladay qorsada doonaysaan ta magacan waa qorsi haddaad aragtaan nin kasto Soomaaliya hadda imika tahay gabooye waa maxay ma jira gabooye wuxuu arkayaa markaba waxa uu soo baxaysa kelmad qoorsi ah soo baxaysa wuxuu ku arkayaa marka tiraada gabooyaanahay inaad ka hooseyso ku arkaya wuxuu ku arkayaa inaad tahay waxaan wuxuu arkaaba gabooyuhu inuu yadalda loo mooyaan kii qurxin lahaa ee hagaajin lahaana waa adigiina waad ka cararaysa adigiina ma ogolid marka yaad ku xiijinaysa yaad ku dilaysa yaad dabarka kaga tooganaysa yaad kaga baxsanaysa yaad kaga cararaysa yaad ku dagaysa yaad ku dawarsanaysa maninka liita maninka bila aqliya maninka cilmi badan maninka maskax badan maninka hadal yaqaan badan maninka waxa weeye ka dhiig badan lama baahna de khiyaamo lama baahna hadday daacad iniga tahay oo leedii meel baan ku wada duulina GYL isku keena laba qabiil way ku jiraan intiina kale maqanay kaalaya wayna hayn ilma adeerayaalow taa yareysto taas waa markaan raali gelintii ka baxay tan waa caam waa sidii caadiga ahayd baan u hadlaya imika waxaan ay fasaxayste cidna ma durayo cidna lama hadlayo raali gelintii waan dhameeyay si qiimo badan baan u dhameeyay qof sida loo raali geliyo mudan oo waxa weyn wanaagsan oo raali geliyo inta ay ka badanna ilaahay baa laga helaa subhanahu wa ta'ala ma fahanteen markaas nin weyn oo 40 jir soo gaaray nin weyn oo 60 sano soo dhaafay nin weyn oo na dhali kara ma garato no lo so sì questo io non ho capito no io questo no c'è questo africano sì. Io non lo so. Va bene. Io non c'è male. Ok. Well, fantastic, man, malene. Il madereyaalo. Haddaynu isugu sheekayno waxaan qofka bila aadanka aanu qaadanin dhibkeega iska leeyahay. Waxaynu u baahanahay haynu iska dayno khiyaaliga. Dulmiga haynu iska dayno. waxa weeyaan qof waxaad arkaysaa kula waa lay dulmeeyaa isaguna dulmi badan wada adigii baa laga yaabaa inaad dulminayso markaas haynu iska dayno magacan xun
ee waxa weeyaan dulliga ah magacan xun ee waxa weeyaan looma ooyaanka ah magacan xun ee waxa weeyaan laangaabka ah madaxan xun ee waxa weeyaan laangaabka ah annaga maxaan ugu kalifaynaa magac laangaaba qaadana war waxaan wada leeyahay wada laangaabin bal waxa weeyaan bal maskaxda xataa laandheera ka noqdaan xataa ma aha inay dameel soo istaagay dhalaan war waxa la waayliga weeyo dhalaan dheeraale xataa baad isku quureen ina yaro Soomaali dhacan ku soo istaagay waxa uu sheegay inuu laandheeray adiga isaga ta u banaysay inuu laandheera noqdo adiga laagaabka dhigay waa diintee mise waa dastuurkee waa oday kasto 40 jira oo ina dhalay ayaa ka qaatay oday kasto Soomaaliyeed inuu dulaysto inuu wax badan wada aragtay nima yaro inuu soo caayo waxyaalaha inagu caayaan dumarku inagu ma caayaan aan jacayna ku dul istaago dumarku inagu ma caayi karaan waxaan kala socdaa markaa waxaan rabaa inaynu fahanno markaa ilma adeerayaal qarnigu wuu isbedelaya noloshu way isbedelaysaa Soomaalidu way isbedelaysaa qofku wuu isbedelaya oo maanta dhalinyarnimadaan ahay beritoole anigu waxa la arki doonaa odaya inta ila daan iyagoo islaamay daawanaya hadaa sii noolaano iyo haday sii noolaadaan marka haddaad adigu dadka gabooyaan waxaan ku yaabay mid kale cajiib waxaan rabaa in Soomaalidu la ogaato imiga aniga way faani karaan anagu waan isku faanaa wallahi imiga qaar badan baa laga yaabaa gabooyaan anigu laangaab haysto in iyaguna laangaab haystaa baa laga yaabaa laakiin ma awoodi karaan inay ninka reer hebel laangaab ugu yeedhaan laakiin anigu waan ugu yeedhaa saxaabteeda meelaan degan waryaa laangaab baan dhahay qofka markaad kelmadda tiraado wax badan buu isweydiinaya odaygaagii kontonaad muu odhan dee laangaab muu celin su-aashii jawaab baa la siiyey waryaa laangaab baa lagu yidhi war adaa laangaaba maad odhan kamaad fal celin wixii baanu ku kornay mid kalaa ku koray mid kastoo la xanuujiya xataa u fiirso xataa ka la xidhaa wuxuu dhahay gabooyahaan baa lay xidhay ta la kufsadaa gabooyahaan baa lay kufsaday kala dulmiya gabooyahaan baa lay dulmiyay hadduu ilaahay waxa weeyaan balaayo keeno gabooyahaan baa waxaan loo sii waayay nacamhaankiibaa bartaa noqday waan baabaanay hanki waxaan aaminsanaahayba waxaan in dulmigan gabooyahaan warda ilaahay saamu odhan ilaahay hadduu ummadda inoo kala leexanayo si kaloo ilaahay noo abuuri lahaa ilaahay sidoodu inoo abuuray ilaahay ummaddan hadduu inoo kala leexanayo caqli kaloo ilaahayna siin lahaa laakiin khalad baynu aaminsanahay war ilmo kastoo abaabulay waxaa laydiga raba war ubadbad abaabulaysaane ubadkiina ka daaya waxa weeyaan laangaabin baa jiriyo gabooyin oo qariidadaas ayna dhahayaan no wax qariid leh adba qariid baa tahay adiguba nin hallaa tahay baarkee marka adiguba nin wax garado wax qaadanayaa tahay ilma adeerayaalow qofka bila aadanki waa siduu iska dhigo ما شاء الله marka taanu ma oday dhali karaan ma aqli celiyaa ma ina yaro ila jaamacad baan ka baxay baan u aqli celiyaa oo gabooyaan hadlaya gabooy war maada ku aqli celiyaa malina ingiriisiga aan bartay baan u aqli celiyaa ina yaro igu raas uu dhanba wax ku bartaa ina yaro igu raas hospital baan diyaariya ina yaro laba meelahan ku dhashay oo ilaha naama dadka iman war ma fikireen ilaa inteed gabooyo noqonaysaa ama midgaan noqonaysaa ilaa inteed dad xalfadooda ka dhaxaysa furtada ka ruuxaysaa madadku xalfad qabsanay maxaa qabiilada kale xalfado u xalaaliyay adiga xalfad ku diiday maxaa umada kale inay wax noqdaan u xalaaliyay adiga ku diiday markaad waxa isweydiiso aniga iguma mashquulaysid laakiin dad waxa ka dhoohan tahay aan adiga mashquulaysaa xagan Muuse maray xagan Marimaan baa maray xagan Matumaala maray isla inaga isku noqonay ma hawla maray mordheera maray isaab meeraysato odaygeeray khayrka Allah siiyo xula ila meerayso
ila meereysadu xilmidu soo saarayno ku marka ila meereyso xilmidu la imanayno ku marka billahi alaykum marka dooni marka adigu noqoto qof qalbiga xor ka ah ila sheekaysaaniga aniga ninka gabooye cid doonto noqo maalinta noqoto qof qalbiga xor ka ah oo isagu wuxuu qalbigiisa ka keeno ku soconaya wuxuu qalbigiisa ku aaminsan laakiin dad nin kula mid ah aaminsan tahay inta nin adigoo kala ad waxa weeye sirriintiisa ogolaanayso oo waxa weeye sinaantiisa diidayso ka hooseynayso markaas ayna ku wada sheekaysan karna laakiin nin qalbiga midgaanka ah oo laangaaba aniga lama hadli karo anna fariisan kari maysid meel aan ka hadli kari maysid kasaaw hadlaya waa qof isku kalsoon marka sidan noqoto ayna ku wada sheekaysan karna hal aniga yeesi kartaa laga yaaba qalbigayga marka la qaybiyo intaasoo jeer la kala sii qaybiyo fallaadir baa laga yaaba inaan qalbiga ka soo gaari karin inaan isku maskaxayn baa laga yaaba inaan ku dhaweyn baa laga yaaba inaan ciriir dhulka isku naal laga yaaba because waxaan ka buuxay ma buux waxaan maraya waxaan meeshan doono maraya nacamnin wax celinayaan ma nin waa reer hebel celinayaan ma inay celinayaan ma tigraysaa waxaad ka sheekeynaysaa inay celinayaan anigu ma xaraan jinin maxaan dhigtay ma garat marka inamada yar iyo dadkan waxa weeyaan way iskaranayaan waa dad gaar marka saaleeyay ma aha dad badan oo wanaagsan oo qiimo badan baa dadka waan isnaqaanaa guluub baan intaan isku guluubkana waan ogahay laakiin in waxa jirta waxa weeye la igu soo soofeeyay moogti waliba imika way iga digeen barigan aan dhigi jiray afayaan baan berigii afayeenka ururka dhalinyarada GYL qaar badan baa dhiirba ka kici jiray hadda la aasay markaas dhiman lahaayeen nacam wax isay ka dhex guuxay oo baan anigu ka hadlay wuxuu la gubanay wuxuu doonayay inuu dhaho ayaan leeyahay kadib isagu ma garanayo ma fahmayo waxaan ma fahansana waxaan ma garanayo waxaan lama socdo balaa wuxuu isleeyahay jaamacad baad ka baxdo jaamacadu wax meel lagu maray isleeyahay ma garatay no marka hore qalbiga ka saaran daxalka iyo qufulka ka saaran marka hore iska saar marka hore heer haddaad taagatay markaad xalfad lagaaga yeedho waa inaad aamintaa waxaan meesha joogaba inaad la simantahay ambaad ka sarayso laakiin haddaad aaminto inaad ka hooseyso waxa ku hor fadhiyaba way dhacday odayaasheenii hore oday bay ku dhacday oday baa shir Soomaaliyeed looga yeeray waa qiso dhaba YouTube ku jira haddaad u baahan tahay soo diraya been ma sheegay kadib imika cidi kuma badhaaysa xalfad lagaaga yeero bal imika xalfad lagaaga yeero mikrofoonka markaad qabsato markaad wadada sii marayso inta meesha taagan baad ku dhaawaa midgaankii ka hor waa midgaankii haday ku dhaaka hor odaygii markuu bartaa sii marayay hool baa la isku yimin jiray waqtiga markuu bartaa marayo qof kasta wuxuu leeyahay waa midgaankii waxa weeye waa dhowr sano ka hor mimbarka markuu koray odaygii waxa weeyaan gabooyay wuxuu soo diyaarsaday buu horeeyay wuxuu leeyahay ana laga daayo waxa weeyaan takoorkan laga daayo ka bilaabay maalan tusaale ahaan baa idin soo qabanaya maanta hal shakhsi baa idin soo qabanaya oo aad wada taqaanaa ninka ilaa barqa jaamac xirsiyo kale waa nin runtii dhalinyaro ah waa nin maanta anigu aan garanayo cid maanta barqa jaamac qaar badan baa iska sheegto qaar baa imika iska ilmaadeersadeen cid iga aqoon badan ma jirto barqad oodiisu markay bartaa tahay oodeeduna waa taas barqad waxa weeyaan waa maanta waa shakhsiga keliyaate ay ku dayan karto waxa weeyaan dhalinyarta bulshada waa nin hadduu wax gudbinayo uu haysto dadkani inay la sameeyeen amba uu ka sareeyo inaad barqadoo kala noqoto iyo dhalinyarta maanta la midkay ku soo dayatay ee la hanka ah sida Kayre waxa weeyaan Mubaarak Cabdilaahi Haybo kale dhalinyaro fara badan oo kale jira Kayre Galaali dadkaas saasa la rabaa isagu wuu sugay cid uu yahay maanta tusaale ahaan barqad laakiin waxa ka weyn maqaalkan uu diyaarinayo wuxuu yahay marka isma dhigi karo markaa barqad waxa weyn maanta waa laga jira badiyaan baad isagoo laga yaaba isagoo waxyaalo badan lagu hayeen waayiisa ku haysto ninka ragga waa kaas weyn ninka meel mara waa ninkaas ninka meel tagaan waa ninkaas ninka meel ka soo waxa weeyaan wax ka soo jeediyaan waa ninkaas marka qeyrkeen
waxay horumar ku gaareen waayo ogay laabta ku haystaan qayrkeen waxay horumar ku gaareen xaafadooda kuma soo snoqdaan hore u faafaan taasna dee qofkii ay ku jirtay inta aniga ay ugu jirtaana isku meel baynu ka wada dhaantaynayna qofkii aynu ku jirina in maadeerayaal qaylada iyo buuqa aynu iskala daba hadhno maada dhashay misoon ku dhalay haddaad sida kale xumaanta u qaatan isku qabiil baanayno minin daadeer ina kala leex rubba kuu sheegay ina kala leexi daadeer saa markaan ku leeyahay kuma nicbin ku jecelahay laakiin waxaan kuu sheegayaa maskaxdaada baad ka shaqaysiin weyday anigu makaama aqoon badi inaad iga aqoon badantaa laga yaabaa laakiin hadaladan aan ku hadlay ka keenaa maskaxdayda in badan baan ka shaqaysiyaa seerji baan u diraa maskax baa ilaahay ku siiyey kombyuutarkii samaysay haddaad caawa ka shaqaysiiso waxyaalo badan oo khaladoo badan bay kaa daadinaysaa laakiin haddaad imika cuntood cabto un oo intii shalay toole kugu jirtay amba inaad qof ka soo maqasho dadka aad ula timaado waxaa tahay qof aan wax weeyaan future lahayn baad qof aan horumar lahayn baad qof aan bulshada bedeli karayn baad qof aan dad ta'asub kaga tagin karayn baad qof waxaad noqonaysaa xataa bulshada markaad geeriyooto bilaa taariikhat qof bilaa taariikhat laga yaabo aniga intay garanaysaa aqoon badan mali margis baan soo dhigtay madrasad yar baa ka soo baxay maxadkaynu baas baan galaaska saddexaad wax ka gaaray ee waxa way Hargeysa ku yaala aqoon kale mali beedii sheegi maayo diin baan bartay alxamdulillah gaariye muxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala Allah naxariisto qof walba intuu bartay buu hadlaa markaad wax barato adaa laga rabaa inaad waxa weeyaan maskaxda ku jirta waxa weyn ka sii shaqaysiiso waxyaalo badan isweydiiso adaa laga rabaa kala doonayay inuu wax balbalaarsada waa adiga kala doonayay inuu hankiisa kor u qaado waa adiga kala doonayay inaad bilaal ku mashquulin amba cid kale aad ku mashquulin ee doonayay inuu ku mashquulo sidoo bulshadiisa horumar ugu bedeli lahaa sidoo bulshadiisa ugu sameyn lahaa taayir cusub amba wado cusub ay marto sidoo bulshadiisa ugu sameyn lahaa inuu wax badan ka bedelo waa adiga cid kale ma waa adiga Jarmalka jooga waa adiga Swiiska jooga waa adiga Talyaaniga jooga waa adiga Sweden jooga waa adiga Ingiriiska jooga waa adiga Mareykan jooga waa adiga Australia jooga dadkani maxay markaa dadkani waa dadkan aynu Soomaalida la nool maxay waxaan ku gaaray wax aynu ku kala duwanahay Soomaali ma jirto xaqiiqatan qofka Soomaaliga waxa kaaga filan ba warayso waxa dareemayso dareemaya waxa ku haysta sidoo hadlay saa soconay takaliya lagu kala tagay waa fikir uu ka fikir duwan fikir baa lagu kala tagay wuxuu garanayaa wuxuu sumcad ku helayo wuxuu garanayaa wuxuu ku helayo dulinimo wuxuu fahansan yahay nolosha wuxuu waxa weeyaan heer ku gaaray intaas ma laga fiican yahay wax kale meesha yaala ma jirto tusaalahan Soomaali markay qurbaha soo gashay maalintii Hargeysa laga soo wada gaxay ee Hargeysa sida ahayd Hargeysa burbur bay wadahay daaradihii maalinta burburka ahaa wala wada dhisay daaradaheena oo de xabad daari ka taagan tahay mooyaane aabadeen xaafadii kale wada daaro wada laamiyo okay ma qurbaan lagu gumeystaa laba ma dalka inaan dhisnaa inoo diiday saddex xaafada ma inaan dhista lagu diiday afar ma inaan horumar gaadha lagu diiday no adiga isku diiday adaa wax kala aaminsan adaa wax kala ka fikiraya adaa bada kala ku jira adaa wax lagu diray adaa mee kale lagu tilmaamay adaa wax kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan umada kala ku tusay adaa fikir aan umada kale lahayn waxa weyn yeeshay marka nin kale waxa la horta marka hore hay la murantide hada aniga la murmaysa isubso war aniga hay la murantide adigu horta yaa tahay bal abtirso markaan qulay abtirso qabiilkaaga ma bal waxyaalaha umada ku tagtay bal ka abtirso waxa ma ku sifaysan tahay waa may xaayga la murmaysan xaayga xijinaysa xay ka baray qaar badan blog ba xataa wada saaray wallahi billahi tallahi oo garanay qaar badan oo saaraya waan ogahay dadka ka shaqeeya xumaanta dadka balaayada dadka fusuqa balaayada magarat horumar la'aanka balaayada marka aad baa idin salaamaya Ramadaan Kareem baan leeyahay meel kasto joogtaana aad baa idin salaamaya hamoogaanina waxa weeyaan beej GYL waa soconaya waa shaqeynaya GYL na
mar haddaan waxaad nagu barateen ummadda Soomaaliyeed waxaan ka cudur daaranay waxaad nagu barateen anagoo waxa weeyaan ka sheekeyno wixii joojini deeni waxyaalo markay rabadaan tubaxdo aad ku farxi doontaan baad naga helaysaan sida riwaayadaha sida fikirada sida qof kastoo dhibaataysan oo Soomaali aan u hadalno qolo kastoo dhibaataysan aan ka hadalno meel kaliya ay isku koobimayno shalay tolaadaan meel kaliya ay isku koobayni maanta meel aan isku koobayna shakhsiyan waliba daan ugu cida maanta afayeen u ahaan ciidan u hadlay ma jiro laakiin waxaan afayeen u ahay qof kastoo Soomaaliyeed hadduu horumar gaarayo hadduu sharaf gaarayo hadduu gobonimo gaarayo qabiil kastoo Soomaaliyeed ayaan u hadlayaa intii dhiman intii dhiban intii aan dhibnayn cid walba waxaan leeyahay ma sha Allah cid walba waxaan leeyahay ma sha Allah cid walba waxaan leeyahay ma sha Allah markaas fikirkaas aniga shakhsiyan aniga hidaacada markaas soo galayo ama barnaamijkaas soo galayo waa barnaamij idii furan barnaamij cid gaara oo waxa weyn ka hadlay ma jiro hada shalay toolay aad arki jirteen inaan waxa weyn gees kaliya ka hadlay maanta waxa weeyaan marka hore baan iska qalbigaygu iska balaarna hadana waa idii furay hada salaal baabadiga xidhnaa waxa weeyaan bilaal albaab walba waa idii furay dad walaalaan nahay dad Soomaaliyan nahay dad mid kaliya taan nahay dad meel ka wada yimid baan nahay dad luqad ku wada hadlayaan nahay dad waxa weeyaan hadaynu dhimano mid baynu ka simanahay isku sibaalayna wada aasa isku xawaalayna ugu aasa isku meel baynu ka wada adeegana isku meel baynu ku wada noolnahay isku baabuura magaalada ka bay xaafadaha si wada raacna dad midaysan baynu nahay dad laakiin waxa weeyaan waxaan yaray ku jirana hal habeen baynu iska saari karnaa one day baynu iska saari karnaa saacad baynu iska saari karnaa nabiga kaleey salaatu wasalaam نبو نبي عليه الصلاة والسلام وحقل يعني كاسو جنة نين كلا مركو كلمة دي مغرب ونينكي مرتبو النقضي نينكي مركو لسه شوقي وحو أركي نينكي أنت نينكي نقبتهم ونينكي نقبته مركو كسي بحيول محاين تاكو دير بكاسولو هل متباي دير هبينكي مركان سيحاني يقولي عندنا قلبي وحوق مقبته هبينكي مركان سيحاني عندنا قلبي وحوق مقبته مركان نقو قف قلبي يسو صافية adiga qalbiga waxa lagu qabto adiga xaasidkaagu habato ogow markastoo xaasidkaaga iyo qurunkaaga iyo balaayada badatana sharaftaada iyo cisadaada culiya meel salaad gaarisa ilaahay saruu ku qaaday hal ugu mashquulo hal ugu waa nin waalan hal ugu waa gabadh waalan hal ugu waa falantay hal ugu waa filan yahay hal ugu waa caynkan hal ugu waa sidan waxaan noqonaysaa magaca ilaahay qof wasiita talaabsanaysa meesha tagtaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tayasiray man yataqi Allah yaj'al lahu makhraja ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أرمها قدام بإلهي كتيسني أدو إلهي كبقوا بس أدو إلهي سبحانه وتعالى كبقوا ما قرأت مرقو أدبا يدي السلامية وكل هذا بربابشكا حويا قويا تدك الشيغاني وحلا قربا إن الكوف فانتاني اللانديرد تهين ولا دير هذا ومدى كلان وحلا لانديرد ولينا كو قرت سيدا قف كاسو قال لانديرد كبرتي ولا لاندير كبري نقطة إنا يربع نعاكو صفر سريع يعني وعي كلا عليه وسلا هذه كنا لقي جاوا قبيل كات هاي أنتوا إنا أنتوا وضيوا شيئين يدنا شيئين كرتان أما قبل هذا شيئين اسم أنا جو هبل هذا أنا أنت هذا شيئين مركا تدكاسا كعب بهان إن الله حويني تجوابته لكن أنا كسكوت تجوابنا إسكا ما بهنين أنا نويدي سلامية وقتنا واتير هذه ما شاء الله ما قرأت هذين كبرنامج قاعد حقنا برنامج بايدي سووا كهذا دون برنامج كفر حدون تاني إن شاء الله وكان رمضان تاني قبحه وحين قال لي وسلا تلين كبير قال لي هاي نسعفينه إلهينا وحن كبرنا وحوين إلهينا نقول وحوين كتابك مديك تلقصي سيدو ذيك راي وحوين إلي وحوين dadka wuxuu bidixdana dayra bidixo hadaa dhinaca midgo ilaahay wuxuu bagaras kuwa kitaabka midka laga siiyay buuri waxa la yiraahdaa buuri midgo hadaa imika laba midig hadaa isku darto laba midig bay noqonayaan midgo laba midig hadaa imika xarig laba xarig saas ku qabato kala jiidaan waxa uu midigo ama hadaa aysan midgo hadaa magaca beeg midgo alla mid baa go'ay midgo alla mid baa go'ay wuxuu macno ku fadhiya xataa ma jiro marka nin Soomaaliya kula midgaan baa tahay midgo adma wax go'ay baa tahay wuba go'ay midgo waa mid baa dhintay
yaa dhintay marka midgo mid dhintay marka kelimadani waxay ku socotaa markuu leeyahay midgaan wax dhintay inaad tahay wax dhintay baad de marka ka qaadan adigu soodiga nool dhaqaaqaya sidoo yar ku dhaaya waa dhimatay sidoo ku dhaaya waa dhimatay marka waxaaba waad qaadataan marka markuu bilaal soo hadla ama canaan soo hadla afkiyo sankiyo waxa weeyaan dibnaha taagtaaginay dadka midgaha idii bixiyay taariikhda barti ku bixiyeen iyo waxa idii bixiyeen iyo waxa igu haysay dadka idiyasaya dibrogaas dad la xaajootaan war waxaan nagu haysataan dhax annaka hadaan ku hadli jirnay magacan deyni waniyo waxa weeye dadka see loo raaca marka idiga nabad helno page-kayga noo daaya noo nabad geliya cidii waxa weeyaan fikirkayga waxa weeyaan aan aaminsanayno rubay idin sheegay takaliyaatna ugu soo isgabanaysa waa gabooy adduunka maanta ana magaca gabooy ugu nacab shay tolaana ugu jeclaa sabab dartood waayo qofka gabooyaha waxaan aaminsanahay maanta haddaan meel isku raacno ka idiliyay inuu yahay magaca qofka wata inuu dhabarka iga tooganayo ka iib yahay ayaan waayo waxyaalo badan baan arkay siyaabo fara badan baan arkay been sheegi maayo ma garatay waayo hiil male garab male xiniye kula galamar taagna maal kula ma garab taagna ficil kula ma garab taagna idu ku soo qaato kula xamanaya nin waxa weeyaan qariyada amba dib soo qaato ina qariyada kula xamanaysa waa noocaas marka yalla daga yalla dila yalla gumaada ma nacasba ma doqonba ma laanga ba arigu baga la dagay waxa aniga aad ugu dagaysaan ma jirtani wax odayaal hore lagu cuno lagu tagay anigoo bilaala iyo intaan xukumo iyo inta ila fikraba ku dagi maysan ma garatay marka aad baydi salaamaya qiimo badan baydi salaamaya rabadaan kariim baa leeyahay tukala waan raacay cidii aniga tabiicadaydu raacisana asxan cidda iga reebtana doo iga reebtaa qofkan isfahanay rag iyo dumarba keen isfahmayna marka horeba isku huun meenu haynba ana ku aqaanay yaa tahay horta ma jirtaaba cagta hoosteeda ma ka aqaanaaba waa may marka inta noo sheeg ciidda ka sareyso de boorka iska tuf marka dhimataybe laakiin inta noo shahay wax kala ha qaadan dulinimaha qaadan laangaabnimaha qaadan wax jilicsan ha qaadan ma garat waxa soo haray qof intuu iska ka soo caay meel soo fadhiistay kaas kuma badaway maxaad ugu jawaabi nin jaayilo farku ugu soo taagay maxaa shan farood ugu taagay deeba la hadliba laakiin hadduu ku hortaagay waxaad ka dhacaysa ka dhex marka rabadaan kariim baan leeyahay walaalayga tumaaloodna waxaan leeyahay raali gelin buuxda aad baa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wanaagsan meel kasta joogtaan bye bye